guud shirkadda Hormuud Telecom Ahmed Maxamuud Yuusuf oo soo xiray shirka ayaa waxa uu sheegay in si dhaqsi ah ay u howlgelin doonaan dhammaan goobihii ay burburiyeen ciidamada Kenya aan tacsiyad Iiraanyada ka socota boorka ama guddiga sare ee shirkadda iyo maamulka iyo maaragtay saamileyda ka socda inaan dhibaatadu ka soo gaarto shanta xarumood ee la burburshay iyo kuwa ay saameysay dadkaas inaan horta aan u tacsiyeeyo anigoo ku hadlaya magaca shirkadda guddiga shirkadda maamulka shirkadda iyo saamileyda shirkadda oo iyagu ay kamid yihiin magacooda aan ku hadlaya inaan u tacsiyeeyo ayaa doonay koowaad waxaan leeyahay waa kaga tacsiyeynaynaa dhibaatada ay ka soo gaartay burburka aan weligelinta lahayn aan maaragtay xushmada lahayn xishoodnimada ah ee lagula kacay shanta xarumood iyo intii saameynaysa in aan furma degdega maamulka shirkadda Hormuud aan ku amro in ay tallaabo qaadaan shanta xarumood ee la burburshay iyo inta ay saameysana si degdega loo oo ay kamid tahay xarumaha ay saameysay shanta xarumood dhibaatada gaartay waxay saameysay